maanta waxa aan ka hadlaynaa 8 cunto oo hadii aad isticmaasho da'da hoos u dhig. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada SMCC. maanta waxa aan ka hadlaynaa 8 cunto oo hadii aad isticmaasho da'da hoos u dhig. intaan horta u gudbin cuntooyinka waxa muhiim ah qofka bini'aadanka ah jirkiisa in uu mar walba isku dheelitirnaado caafimaadkiisa uu ka fakaro. taasina waxay ku imaanaysaa adiga oo cuno cunooyin dheelitiran ama waa inay ahaadaan cunooyinka aad cunayso kuwa u badan vitamins iyo minerals. sidoo kale qofka waxaa loo baahan yahay in uu yareeyo carbohydrate-ka isticmaalka cunooyinka tamarta badan leh, gaar ahaan qofka markii uu sii weynaado ama 30 uu dhaafo ilaa 40 da'daas markii qofka uu dhaafo waxaa loo baahan yahay cunooyinka carbohydrate-ka booskooda inuu bedelo ama uu iska yareeyo cunooyinka carbohydrate-ka. waxaa laga wadaa waa baastada, bariiska, waxyaabaha sokorta jirka ka buuxinayo. waxaan u baahan tahay inaad ku bedeshid cunooyin jirkaada ka buuxinayo vitamin and minerals. marka cunada koowaad aan soo qaadanayno waa qamadiga. qamadiga inta badan waxa uu jirkeena u leeyahay caafimaad. waliba waxaa la dhahaa caafimaadkiisa waa mid aysan kala go'aynin, waxaana la sheegaa in ay ka buuxdo nafaqo. qamadiga baaritaano la sameeyay waxay sheegaysaa in ay ku jiraan calcium, potassium, magnesium, phosphorus iyo nooc vitamins ah sida vitamin A, vitamin C, vitamin K iyo vitamin B. guud ahaan intaas in laga helo. marka sidoo kale tadna waa cunno dhulkeena ka baxda ama aan heli karno oo ah mid fudud oo waliba raqiis ah. sidoo kale qofkeena wuxuu u baahan yahay in uu isticmaalo papaya. papaya macnaheedu waxay ka dhigan tahay vitamin. waxaa ku jira papayaga sida la sheego waa cunooyinka aan isticmaalno gudaha dalkeena ayaa inta badan soo xulnay. waxaana kamid ah waxa maadooyinka ku jira vitamins ayaa laga helaa, calcium ayaa laga helaa, magnesium oo maado muhiim u ah jirka ayaa laga helaa. calciumta sidoo kale qofku markii uu weynaado waxay dhisaysaa lafihiisa. inkastoo da'da ay kugu soo siyaado waxay ka dhigan tahay cudurrada lafaha inay qofka ku siyaado oo ay fududaato qofka jabitaankiisa. marka maadooyinka laga helo ayadana waxaa kamid ah calcium. waxaa kaloo cuntada saddexaad waxaa kamid ah blueberry. blueberry inaysan canab ahayn ayaa arjeynayna haddii aad garanaysa Soomaali waxa lagu dhaho hoos noogu reeb. blueberry faa'iidooyinka ay leedahay waxaa kamid ah carbohydrate kuma jirto ama maadooyinka jirka tamarta siiya ayaa ku yar. sidoo kale waxaa ka buux maado antitoxin ah ama waxay kamid tahay maadooyinka wasakhda jirka ka saaro ayay kamid tahay blueberry. marka miraha qofka hadduu isticmaalo waxay ka dhigan tahay in jirkiisa antitoxin uu noqonayo oo wasakhdii dhameed laga saarayo. sidoo kale waxaa jira cunooyin broccoli la yiraahdo. broccoli dabcan waa saashada sida aad uga jeedaan anaga gudaha dalka lagama helo, laakiin dadka dibadaha jooga way heli karaan, way isticmaali karaan. waana maado ka hortagta infectionka. sidoo kalena waxay yiraahdaan waa maado anti aging ah, yacni maado ka hortagta duqowga degdega ah. broccoli marka khudaartan anaga maxaa booskeeda noo buuxin kara? anaga waxaan haysanaa marka la joogo gudaha dalka koosto, sidoo kale waxaan haysanaa bagel, sidoo kale waxaan haysanaa ansalaato. guud ahaan khudaartaas cagaarka waxay buuxin karaan booska broccoli. okay, broccoli I don't know magaca Soomaali aydan waxa lagu dhaho broccoli, laakiin booskaas waxa noo buuxin kara anagan oo aan haysano khudrad kale. cunada shanaad ee ugu fiican ama anti aging ka loo isticmaalo waxaa kamid ah spinach. spinachka anaga khudaartan cagaaran ee inta saaran waaye oo yacni laamaha ah inta badan waa laga helaa dalkeena, laakiin spinach waa ayadana waa khudaar jirka ka dhigto hydration, yacni qofka inuu biyo badan cabi oo kale ayay ka soo saaraysaa. taasna hydrationka iyo antitoxinka waxyaabaha ka qayb qaata qofka in uu yaangi u muuqdo ama qof yar u muuqdo ayay qayb ka tahay. maadadan ama cunada waxaa ku jira vitamins sida vitamin A, vitamin C, vitamin E iyo vitamin K. magnesium waa laga helaa. sidoo kale tadana maadadan waa maadada ugu fiican ee ironta laga helo. spinachka aan ka hadlayna cabbage in la dhaha arjeenaya af Soomaali ahaan, waana qofkii qaano magaceeda saxda ah hoos ha noogu soo qoro. waa maasantiin. cunada lixaad ee ugu fiican waa natiska. natiska waxaa soo hoosgalayo anaga waxaan dhahnaa natis af Soomaali ahaan looska, laakiin cunooyinka borotiinka leh oo miraha ah oo dhan waxay soo hoosgalayaan natiska. sida waxaa kamid ah digirta nooceeda, tan cagaaran ama tan gaduudan ama looska. qofka kuwaas waxa ugu fiican ee laga helo waxaa kamid ah proteins in laga helo, fat oo caafimaad qabtan in laga helo. yacni waxay leedahay saliid omega 3 la dhaho. omega 3 fatty acid waxay kamid tahay waxyaabaha jirka ama maqaarka adkeeyo oo maqaarka yacni ka dhigo
يعني سلس بدل إنه صار سو كان إنه كهرتكته إنه قرح قفك داوعه أما قرح داوع يكسو قارتيسو سو كان إسكي أما مقار كذا وحو أمو قنايا قف قروح بدن ودلالة يعني glowing أيو كده يسا maadada toddobaad ama cunada toddobaad ee ugu fiican waa avocado anaga hadda waa isticmaalnaa ayadoo magacan la soo guuriyay ayaa laga helayaa dalka avocado marka ayadana waxay leedahay vitamin B iyo potassium ayaa ku jiro sidoo kale tadana vitamin K iyo vitamin C ayaa laga helaa waxayna u fiican tahay ama waxa ka buuxo maadooyin anti inflammatory disease ah yani waxa infection ka ah jirka ku jira in ay la dagaalan ku sameeyso ama ay caawiso difaaca jirkeena kaasoo ka hortago infection ka jirka soo galo cunada sideedaad ee ugu fiican ayadana sidoo kale waxaa ka mid ah sweet potatoes waa laga helaa gudaha dalkeena waliba waxaa ka mid ah sweet potatoes potato macaan ama baradho qofba sida u yaqaano ayadana waxay leedahay vitamin A ayaa inta ugu badan laga helaa iyo vitamin C iyo vitamin E ayadana waa cunno dalkeena laga helo oo aad u fiican marka sideedaas cunto waxaa usoo qaadanay waxaan ku saleynay in gudaha dalka laga heli karo dadka dibadaha joogan way helayaan dabcan ma sha Allah intaas baa ku sameynaa waxa kale ugu muhiimsan qofku waa in uu isticmaalaa biyo ku filan maalinkii qofku waa in uu cabaa biyo ku filan imaankeena maanta intaas ayaa ku sameynaa insha Allah waa maasantihiin kanaalka asxaabtaada gaarsii sidoo kale ku soo dhawaaw maadsanidiin ku soo bir channelkeena